qaar ka mid ah beeraleyda soo gaarsiisa magaalada Garowe caasimada dawladda Puntland midhaha noocyadiisa kala duwan ee ka soo baxa beerahooda waxay cabasho baan ka muujiyeen weerar ay u geystay milishiya beeraleyda soo urursaday oo khasaare soo gaarsiiyay beerahooda wax soo saar ay ku leeyihiin duleedka caasimada Garowe kuwaas oo sheegeen in milishiyaadkiisa soo bahaystay ay khasaare gaarsiiyeen qalabkii ay ku shaqeyn jireen ka mid yihiin matooradii biyaha solar systemkii sidoo kale rig ay sheegeen inay ku qodayeen cilbiyood lagu waraami doono beerahooda waxa xabadii halka xabada kaga dhacday taa xabad weeye kuwa xabada weeye kuwa xagga hoos xabada weeye raaytooraha waa duleelisay waxay sheegeen beeraleydu in inta badan beerahooda ay ka soo bixi jireen midho beeroodka ay ku nooshahay caasimada Garowe iyadoona inta badan loo dhoofin jiray magaalooyinka dariska ah magaalada Garowe kuwaas oo haatan ka cabanaya weeraro joogto ah oo milishiyaadkiisa soo bahaystay ay ku hayaan beerahooda waxayna ka warbixiyeen khasaarihii soo gaadhay weerarkaasi ay ku soo qaadeen reer guuraaya waxay u geysteen dhibaatada arkaysan solarka hal xabo kama ay tagin oofiyow waa burburiyeen biqayr sabab wax sababa oo igu yimaadeen iyo wax dhiba oo ka jireen midna ma jirin daris baan ahayn wadaga waa wada deganeen intaas oo sanad wada deganeen maalintii may soo duuleen sidaas ay wax u galeen khasaaradaas waa noo geysteen beertaan waa saas beer oo ah weeye geed miroodka bay leedahay wax walba ay leedahay dadku dhan baa og waa beer la yaqaan waa sharciyeysan tahay sharci bay leedahay dawladda waa ka diiwaan gashanta qudrad tira badan oo nooc walba leh wixii qudrad loo yaqaan noocan ka bixin ma jiro bamka waa gubtay isagoo istaaran baa waxa lagu shubay ciid tubada saaragtaan baa la wareejay bamki baa lagu shubay solarkana waad aragtaan 72 xabo ahaayo wax fayo kuma jiraan meeshii nationalka internationalka ah oo dabka isugu imaan jiray na waa la gubay waad aragtaan tii dabka waa ka guban yahay xabad baa laga daaday dhibaatada loo geystay waa inta weeye waa solarka iyo bamka iyo dabkii oo kulli la jaray waad aragtaan qiimo tira badan oo ku fadhiya wixii uu ku fadhiyay iyo qoraaladiisii iyo shirkadihii laga qaaday kullina waa la hayaa xisaab aad iyo aad u fara badan oo ku fadhiya ayaan malayn karin dadka waxa kan geystay ilaa 40 beerood baa meeshan ku yaal waa waxay u dhaarteen oo hadda u dhaaranayaan iyo waxay dib u geysteen هذا بين ما كدونا أنا كسر سالكانا ريق با قداي ريق قداي قارجي حبد بلدعين ريقي أنا خصبت دي شغينا سبي حبد كلدعين قارجي تايرز حبد بلدعين ريقي ما شغينا يوافنش قارجي أنا ما شغينا يوافنش الشركات دي مركان والله حريرنا ريق على حيد كبنيجي قرالك قارجي سودكميتي قويمي أو يكسر قتين بين طسين riiga iyo gaarigiisa laba wiish buu lahaa intaas oo saara waxay ilaa 1 milyan 200 kun ugu fadhiya dawladda iyo ismada iyo dadka kala aqoonyahanka iyo wixii islaam oo kala wax garanaya dadka dacwaan ka nahay wixii hore inoo geystay la keenaa rabnaa hadda in la ka qabtaan rabnaa dadkii kale oo la rayay oo waxa qabana in la ka qabtaan rabnaa magacaygu waa Marya Ismaan Suudi waxaana isuduway gobolka wasaaradda beeraha waxaan u imi meesha in aan fiiriyo bal beerta iyo dhibka gaareen in arko waa rabay mid labaad waxaan rabaa waxa beerta dhexdeeda ku yaala dalagyadu waa kala qiimo badan yihiin yani anaga agteena markay taa beeraha iyo sida beerta structure-keedu yahay baan rabay in arko waana arkay horta waxaan asaf aad uga xunahay in aynaan maanta sida hadda xaaladdu u muuqato waxba inoo ma qarsano waxa la yiri hadii foolitimaada baa la yiri guud qarsiin ma leeyahay sama marka waxaba iska cad hadda dadka kale inay dhibanayaal yihiin kan wax xisaabiyana waa ilaahay meesha joognana Allah nagu xafido kii oo laqodayo waana la soo weeraray xabada dhalinyaro nagu fudho xabadii aniga maradaasi ka duseen waa kuwa xabadii way u jeedaan indhihiina idin macalina aniga laba nin baan ahayn labadii nin anaga ilaahay waa naga nabadgeliyay laakiin gaariga riigaas kan hoose xabadu waa ku tuseen oo taayiradaas oo dhan waa banjareen ka sare oo shaqeeyaha oo motorka sare ah waa gubtayso tirada dhalinyarada qiyaasi kartaa idin soo weerartay 1 iyo 2 moor laakiin 20 xisaabta 20 waa igala badnay
dhinaca kale mas-uuliyiinta iskaashatada beeralada magaalada Garowe ee weerarka loo geystay burburka la gaarsiiyay beerahooda ayaa kulan la qaateen mas-uuliyiinta maamulka gobolka Nugaal waxay ka warbixiyeen qasaarihii la soo gaarsiiyay beerahooda iyaguna maamulka Puntland gaar ahaan gobolka ka codsaday in sharciga la soo hostaajiyo maleeshiyaadkii ka dambeeyay weerarkaasi lagu soo qaaday macada halka taal gaajo ma jidhaa ninka waxaas haystaa ninka u beeray oo ka shaqeeyay oo ku dhintay oo ku basbeelay oo xoolihiis ku dhinteen in inta loo tago lagala daalo xabad war sharcigeenu qori maayo oo diinteenu qori mayso oo islaamnimo maaha xaasha lillah waxaa kaloo jira nimanka waddanka waa la kala degan yahay waana la wada leeyahay annagu waddanka waa ka shaqaynaa marka walaalayaal anigu aan ninna ku xadgudbayn waxaan leeyahay sida islaamku u nool yahay loo wada noolaado hana la isnabadgeliyo beeraleedu way dadaashay wax jawaaba ma ay bixin wayna ku mahadsan yihiin reer baadiyahana waxay la tahay isimadii maamulkii ciidamadii intuba waxa weeyaan waa u jeedaan beelata wayna arkayaan hantida la baabiyana hanti caadi maaha waxay iska bixin karaan maaha dadka baabiye marka dadka baabiyaha laga soo qaado hana nala siiyo waxayagi beeraha iyagana hana nabadgeliyo iyagana waa nabadgelinayna mas-uuliyiinta gobolka Nugaal oo cabashada beeralada u gudbisay ka jawaab celinaya ayaa waxay sheegeen in arrinkan ay u xisaareen madaxda dhaqanka Puntland si ay jawaab cad uga bixiyaan qasaarihii soo gaaray beeralada iyo abgabkoodii waxaad soo gudbiseen cabasho dhibaatada idinku dhacday markii hore waxaan leenahay wixii idinku dhacay ilaahay wax khayr ha idinku bedelo waana ka xunnahay in dad Soomaaliyeed oo reer Puntland oo hantiil tabcaday dhibaato loo geysto waxaan u qaadanaynaa dhibaatooyinka waddanka dhaca qayb ka mid ah wax ka badan baana ka sii dhaca waxaan idinku bogaadinayaa sidii ammaanka aad uga shaqayseen oo aydan tallaabo u qaaday cidna aad u dhibaatay waxaan leeyahay halkaa kaga sii wada anigu ma ogi hadda odayaasha hawsha ku jiray dee go'aan ay soo saareen waxay la tahay waa iska warqabtaan oo warbaad hesheen anigu ma ogi waxay la tahay si qof caqli qabaayo waxaa inuu soo kale hala baabiyo laakiin anigu hadeer beeraha la burburiyo iyo arrintaas weli annaga nama soo gaarin inta waxaa la yidhi raggaa maxaynu ku nidhaahnaa markaasi haynoo hadleen waxaa xusid mudan in beeraleydu cabasho ba'an ka muujinayso hanti qaaliya oo ay lahaayeen oo maleeshiyaadkan ay khasaare soo gaarsiiyeen maxamed axmed jaamac maxamed bidhaanshe telefishinka caalamiga SBS Garowe